السلام عليكم أصحابتي قروحda badan leh seetiin sida iga barateen mar walba waxa inoo soo raaciya cuntooyinka ducooyinka wax kale oo ma aragtay ka qurux badan maba jiraan oo la soo raaciyo soo mar walba camalkaaga ku hagaaga waa dunyadaada ku hagaagta waa noloshaada ku hagaagta waa adiga oo hagaaga qof walba Ilaahay waxa uga baryaa wadada toosan qof walba Ilaahay waxa uga baryaa jannada inuu dhamaantii inuu wada geeyo intii muslina ay soo duceen insha Allah Ramadaan baa soo dhow alla khayr ha nagu gaarsiyo kulan khayrna Ilaahay nagu gaarsiyo kuwa ka faa'iideysta Allah ha naga dhigo nabad qabna kuwa ku gaara Ilaahay naga dhigo mar walba ducooyin bay noo soo gudbiyaa haddii ay ku soo gaaraan ducooyinkayga sheerta ka ilaawin wax wacan haddii aad sii faafisid adiguna khayrkiisa ayaad leedahay soo asxaabtayda waxaan ka codsanayaa haddaad channelka soo booqatid inaadan ilaawin subscribe-ka iyo like-ta waa mahadsantiin maanta ducadeena waxay tahay duco oo aad iyo aad u macaan oo maasha Allah u fiican oo marna aan la soo koobi karin fadliga ay wadato marka mar walba asxaab ku dadaala ducooyinka waa lagu dadaalaa ducooyinka waxay ka faa'iideyaan kurbada waxay ka faa'iideyaan dhibaatada waxay ku siinayaan waxaad ka helaysaa firfircooni waxyaalo badan ayaa laga helaa kaliyaatee la iskama akhristo mar walba ducooyinka markaa akhrisanayso oo doonayso ducadaas inaad ku mira dhasho waxaa la sameeyaa qalbiga ayaa la furaa yani waa la tukadaa waa la duceystaa ka bacda iyo ducada ma aragtay la furaa laakiin adigoo intaad soo jeedin qalbigaaga aad tiraahid sida iska tiraahid iska socotid dee ducadii ku suurta gali mayso yani walba ducada iska tiri ayay ahayd soo mar walba ducooyinka lagu dadaalo loo soo jeesto hal la akhriyo iyaga ayaa ku liibaanaysan aakhiradana maxaa la yiraahdaa shaqeysta dunidana oo shaqeysta labada loo shaqeysto maxaad ku shaqeysanaysaa camal fiican yani camal fiican hadaad sameysid waad shaqeysatay laakiin camal Allah ay naga dhigo kuwa camalkoodu canaado kuwa fiican Allah ay naga dhigo ducada maanta inoo sida nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam in asxaabtiisa kamid ahaa ayaa xilli masaajidka uu ku arki jirin xilliyada uu lagu arki jiray soo galay ka bacdina uu weydiiyay wuxuu ku yiri waxaan kugu arkay masaajidka xilli aan kugu arki jirin maxaa kugu dhacay maxaa jira asxaabiga baa u jawaabay wuxuu yiri waxa ay haysta murug bay haysata iyo dayn baa layga rabaa dayn ayaa laygu leeyahay yani dhib ayaa haysta nabiga buu sheegay sallallahu alayhi wasallam aan ku salino nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku salino soo u sheegtay wuxuu yiri kurbadaas ay haysta culeyskaas ay haysta sidaas majaadka uu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ku bara kelmado waxaasoo dhan ka baabiinaya yani ka dulqaadaya dulqaadka waxaasoo dhan ku haysta murugta wax walba ka dulqaadaya ayaan ku baray wuxuu ku yiri nabigu akhriso ducadaas wax walba way ka dulqaadaysaa culeyska kurbada wax walba dareemayso way ka dulqaadaysaa soo ducada wuxuu ku yiri akhri waxaadna tirahaa اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال يعني دعاء نخرسه أيضا يا كادر القادسة كربضة يدين تلبضة سو إننا وين إن شاء الله كدب آخرنا وكددنا waxaan rajeynaa ducadan duca la mid ah inaan ku kulanno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.